السلام عليكم. maanta waxaan dhigan doonaa casharkii sagaalaad ee isu qaybinta tirooyinka inagoo kusoo guda jirnay marka laba tiro la isu qaybiyo ama laba tiro isu qaybintooda hadhaagu soo baxayay. maanta waxaan farabadin doonaa uun tirooyinka la qaybinayo bayn badin doonaa uun markaa isu qaybintu baynu yaro dheeraysiinaynaa, laakiin sida hore ayaynu u socon doonaa haddii aan la idmo. qaabka hore baynu uga shaqayn doonaa. tusaalayaashan haddaynu ku eegno, tusaalaha koobaad haddaan eego 428,573 loo qaybiyay 8. marka hore radicalka waxaan gashanayaa tirada la qaybinayo 428,573 loo qaybiyay 8. marka lambarka ugu horeeya tirada la qaybinayo oo ka yar tirada loo qaybinayo marka labada hore isku qaadaya tirada marka 8 lagu dhufto 8 raadinaysaa waa 6. booska labaad ee 8 dusheeda dhigaysaa 6 8 ku soo dhufso waa 48. 48 soo kala jar waa eber. marka lambarka ku xiga la soo daadegaysaa tuuga ka yar tirada loo qaybinayo lambar kale ku sii xiga la soo daadegaysaa 5. tirada marka 8 lagu dhufto 25 ama ku soo dhow waxa ugu soo dhow 3 8 ku soo dhufso marka table isku dhufashada la eego marka 3 8 ku soo dhufso waa 24. 25 kala jar waa 1. marka uu ka yar yahay halka tirada loo qaybinayo marka lambarka ku xiga la soo daadegaya 7. tirada marka 8 lagu dhufto 17 ama ku soo dhow table isku dhufashada marka eegto waxa ku soo dhow 2 8 ku dhufo 16. haddii 3 lagu dhufto 24 ka badnaanaysa marka 2 8 ku soo dhufso waa 16. 17 kala jar waa 1. halku uu ka yar yahay tirada loo qaybinayo marka lambarka waa la soo daadego 3 soo daadeji 13. tirada marka 8 lagu dhufto 13 ama ku soo dhow waxa ku soo dhow 1. 2 haddana lagu dhufo 16 ka badnaanaysa marka 1 baa ku soo dhow 1. 8 ku soo dhufso waa 8 uun marka ay kala go waa 5 halka kaaga soo hareeya. marka 5 uu ka yar yahay tirada loo qaybinayo wax kale loo istaadegaana ma jirto marka hadhaawo baynu noqonaysaa 5 mar hadda hadhaatay xagga sare wayna ugu dalacan jirnay waan dalacaynaa xagga sare inuu keenna asarkeena ku darsanaynaa marka hadhaa 5 banoorana halkaas ay jawaabtu intaas ay naga dhan tahay. tusaalaha labaad haddaynu eegno 2,417,600 loo qaybiyay 9. marka hore waxaan radical ka shaqeynaa tirada la qaybinayo ee 2,417,600 ayaa waxaanu qaybinaynaa 9. marka lambarka ugu horeeya tirada la qaybinayo waa ka yar tirada loo qaybinayo marka labada hore isku qaadaynaa tirada marka 9 lagu dhufto 24 ama ku soo dhow waxa ku soo dhow 2 ku soo dhufto 18 marka table isku dhufashada inuu eegno haddii 3 ku dhufno 7 ka badnaanaysa marka 18 ayaynu waxaanu ka soo jarnaa 24. halka waxa iga soo hadhay 6. 6 way ka yar tirada la qaybinayo marka lambarka ku xiga la soo daadiga halka tirada marka 9 lagu dhufto 61 ama ku soo dhow waxa ku soo dhow 6. 9 ku soo dhufo 54. 7 haddaan ku dhufto ka badnaanaysa 63 bay noqonaysaa 9 6 ku soo dhufso waa 54. isoo kala go waxa halka iga soo hadhay 7. 7 ka yar tirada loo qaybinayo marka lambarka ku xiga la soo daadegaya 7. 7 iyo 7 bay noqonaysaa tirada marka 9 lagu dhufto 7 ama ku soo dhow waxay nagu soo dhow 8. 9 ku soo dhufto 12 haddaan 9 ku dhufto 7 ka badnaanaysaa marka 8 9 ku soo dhufso waa 12. markaad waa soo kala jarayaa labadan 5 halka ay ka soo hadhaya 5 waa ka yar tirada la qaybinayo marka lambarka ku xiga la soo daadegaya 6. 6 iyo 50 bay noqonaysaa marka tirada 9 lagu dhufto 6 iyo 50 ama ku soo dhow waxa ugu soo dhow 6 ku soo dhufso 9. haddaan 7 ku dhufto way ka badnaanaysaa 63 bay noqonaysaa marka 6 9 ku soo dhufso waa 54. labada marka soo kala jaro 3 baa soo hadhaya 2 ay soo hadhaya baan leeyahay 2 ka yar 9 marka lambarka ku xiga la soo daadegay 0 20 bay noqotay tirada marka 9 lagu dhufto 20 ku soo dhow maxay noqonaysaa 2 9 ku dhufto 8 marka 3 haddaan ku dhufto way ka badnaanaysaa 2 9 ku soo dhufso waa 18. 28 soo kala jir waa 2
laba way ka yar tirada la qaybinayo lambarka ugu dambeeyaan la soo daadegaya marka labaatan bay haddana ay noqotay haddana laba igu saar tirada marka sagaal lagu dhufto igu soo dhow ee labaatan iyo laba sagaal igu soo dhufto 18 haddana iisoo kala go waxay soo baxaysaa laba marka laba way ka yar tirada loo qaybinayo wax kale loo soo daadega ma jiraan laba waxaa dhaaba inuu noqonayso waan dalacaynaa asarkeen ku darsanaynaa inoo soo baxay hadhaa laba inoo oranaynaa marka ansarku saas sax inuu yahay maanta casharkeena halkaas ayaan ku joojin doonaa waa inoo casharkan kan xiga haddii alla idmo assalaamu calaykum